habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxay kala yihiin kulan degdeg ah oo ay qaramada midoobay yeelatay ayaa loogu baaqay Ruushka inay degdeg u joojiyaan duqeynta Ukraine waan dalanayn waan gaajisnayn ma seexan 2 maalmood waxaan ka xunnahay sababta ay marka hore Ukrainiyaanka u saareen anagana dalkooda inooga tagayaan ومid ka mid ah shisheeyaha uu dagaalku saameeyay oo ka cabanaysa midabta koor warbixin dheeraad ah ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena waxa ka mid ah magaalada Liu kumayaal ayaa ka qaxay dagaalka oo meel ay ku nabad galaan baadi goobaya kumayaal rayid ahna oo khibrad military aan horay u lahayn qoriga ayay qaateen si ay Ruushka ula dagaalamaan si loo badbaadiyo si loo naqdiyo iraahday sheekooyinka taariikhiga gumaysiga ayaan waxaan booqanay bandhig farshaxan Nigeria ay leedahay oo lagu qabtay mid ka mid ah dhismooyinka taariikhiga ee London kala soco BBC News Somali televisionka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan meel kastoo joogtaan oo aniga Cusmaan barnaamijka idin la socodsiinaya aan ku bilaabanay Ruushka iyo Ukraine ayaa markii ugu horeysay wax yeelanayaan wadahadalo foolka fool ah iyadoo ciidamada madaxweyne Putin ay ku duuleen 5 maalmood ka hor dalka Ukraine rajo sida u weyn lagama qabo oo degdeg inay soo baxdo waxayna ciidamada Ruushka ay wali weerarayaan magaalooyin iyadoo kumayaalna ay guryahooda ka qaxayaan sida hadda aad uga jeedaan muuqaalkan ka hor inta aysan wadahadalada bilaaban Ukraine waxa ay sheegtay inay doonayso xabad joojin in ciidamada Ruushka ay ka baxaan halkaasina ay rabto dhinaca Ruushkana waxa ay sheegeen inay iyana doonayaan in la gaaro heshiis labada dhinac ay dani ugu jirto dadweynaha ayaa galay gabaad dhulka hoostiisa ah magaalada Kiev ee caasimada wadankaasi Ukraine markii ugu horeysay maalmo ayuu dagaal ku qaboobay iyadoo oo la qaaday bandowgii dukaamada ayaana halkaasi waxa la sheegayaa in ay cuntadii ku sii yaraatay maantana dib ayaa loo furay dukaamada dadweynuhuna waxay iibsanayaan cuntooyinka asaasiga ee daawada dukaamada waaweyna waxa ayna hoos u dhacay badeecooyinka yaala shaqaalaha badidoodana waa ay maqnaayeen madaxa hay'adda xuquuqda aadanaha qaramada midoobay waxa uu sheegay in ugu yaraan 102 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur la og yahay in Ukraine lagu dilay ilaa iyo markii ay Ruushku halkaasi ay ku soo duuleen dhowr magaalo oo Ukraine ku yaala ayaa hal habeen la weeraray iyada oo Ukraine ay gashay difaac adag magaalada Kiev military Ukraine waxay sheegeen inay ka hortageen weerar soo noqday Ukraine waxay sheegtay in sawaariiqda Ruushka ay ku dileen 10 rayid ah caasimada labaad ee la yiraahdo Kharkiv halkaasi oo laga soo sheegayo in wadooyinka lagu dagaalamay koonfur bari ciidamada Ruushka waxa ay qabsadeen dekedda la yiraahdo Bernitsk halka magaalada Mariupolna la sheegayo in uu dagaal uu ka socdo waxa jira warar sheegaya in ciidamada Ruushka ay ku sii jeedaan magaalada Kiev ee caasimada wadanka Ukraine waxaana muuqda sawirro laga soo qaaday muuqaalo satellite oo aan la xaqiijin karin ay muujinayaan in militariga ay ku sii jeedaan dhanka Kiev waxayna u muuqdaan in ciidamo badan oo Ruush ah ay la socdaan taangiyo ay halkaasi ku sii jeedaan iyagoo magaaladaasina waxay u jirtaa 80 kilomitir halka sawirada laga soo qaaday kolonyadana waxay dhirirsan tahay ilaa iyo 5 kilomitir markii ugu horeysay taariikhda midowga Yurub ayaa axadii go'aansaday in ay hub siiyaan dal dagaal ku jira iyaga oo ballan qaaday Ukraine hub ay ku jiraan diyaarado dagaal wadahadalada u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ee ka dhacay xadka Ukraine oo ay la wadaagaan Belarus ayaa soo dhamaaday maanta labada dhinacna waxa ay dib u soo laaban doonaan caasimadaha wadamadooda si ay wada tashi ula yeeshaan dawladahooda qodobada ugu muhiimsan ee wadahadalada nuxurkoodu waa wadahadaladaasi ayaa ah in xabad joojin laga gaaro halkaas Ukraine waxaana laga wada hadlay suurtagalnimada wareeg labaad oo wadahadalada oo mustaqbalka dhaca qaramada midoobeyna waxa ay ku baaqday xabad joojin degdeg ah dagaalka Ukraine waa inuu joogsadaa waxa uu ka socdaa dalka oo dhan cir dhul iyo bad waa inuu hadda joogsadaa
haddii haddaba aynu dib u eegno qaramada midoobay waa hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa sheegtay in tiro ka badan nus milyan oo reer Ukraine ah in ay hadda u qaxeen dalalka dariska la ah wadanka Poland oo ah dalka ay dariska aadka yihiin aadka isugu dhow yihiin ayaa sheegay in 250,000 oo reer Ukraine ah oo badidooda haween iyo carruur yihiin lagu qaabilay xuduudda halkaasi xuduudaha midowga Yurub waxaana la doonayaa in ay lagana baqaya dawladaha Yurub iyagana in ay soo gaari doonaan malaayiin kale oo soo qaxay qaramadu waxay sheegtay in tiro kale oo badan ay ku barakaceen gudaha dalka Ukraine fargalkiin ayaa magaalada la yiraahdo Lviv ka soo diray warbixintan aadan maxamed cabdi saalimin ayaa soo jeedinaya dad badan ayaa qaxaya laakiin guud ahaan magaalada Lviv codadka iyo ducooyinka kuwa halkan jooga guri aanay ka tagi doonin kaniisadda St. Peter iyo Paul ayaa burbur waxa uu ka soo gaaray dagaalkii labaad ee adduunka waxa xiray Sofiyeetkii hadda waa kaniisad loogu talagalay ciidamada Ukraine kuwani waa wajiyada dadkii ku dhintay 8 sano ee dagaalka Ruushka iyo qaar ka mid ah carruurtooda We don't have fear because it's ma baqayno sababtoo ah waa gurigeenna waxaynu joognaa hoyigeenna Ruushka ayaa yimid gurigeenna haddii Ruushku uu yimaado gurigaaga maxaad samayn lahayd Russia go to your house what do you do saldhigga Lviv oo hadda xarun u ah kumanaan qaxaya cabsi ayaa ka jirta ina waa professor ku takhasustay dhismaha waa hooyo leh wiil dhalinyaro ah iyo 2 gabdhood aabahood waxa uu ka dagaalamayaa jiidda hore ee bariga way adag tahay in la qeexo xanuunka iyo cabsida ka jirta gudaha wax walba way gubanayaan way adag tahay inaan u sharaxno carruurteenna waxay u hiloobaan qaraabadoodii iyo asxaabtoodii aad bay u xanuun badan tahay ma qeexi karo kuwa halkan ku soo qulqulaya waxaa ka mid ah arday badan oo ajnabi ah oo ka yimid Kharkiv halkaasoo dagaalo ba'an ay ka socdaan dhalinyaradan ayaa u dhashay Nigeria weli dagaal baa socda miya 2022 waxaan u haystay inaan waxaasi ka ilbaxnay nolosha qof walba waa muhiim waa inaan adkaysi yeelanaa si aan u sii jirno naxariista deegaanka laakiin su'aal ka weyn mas'uuliyaddooda waxa laga yaabaa inay weli jirto isla xisaabtan sharci ah oo ku saabsan arrimahan oo dhan qareenka sare ee dembiyada dagaalka ee Ingiriiska ayaa ii sheegay in la tixgelinayo maxkamad gaar ah oo dacwad ku oogaysa madaxweyne Putin waxaan maanta joognaa duni aad uga duwan dunidii 5 sano ama 100 sano ka hor xaqiiqda ah in aad tahay madaxweyne wadan hadda kadib lagugu cudur daarayo dacwadaha suurtagalka ah ee la horgeeyo maxkamadaha caalamiga ah ee dembiyada noocan oo kala marka ma dhici doonta ciidana ma oga taasi qayb ahaan waa su'aal siyaasadeed iyo mid military ma dhici karta dabcan ha waqti kadib kuwani waxa ay noqon doonaan su'aalo lama huraan u ah qaxootiga laakiin mudnaanta dhow ee haatan waa baxsashada dadku way nagu soo qulqulayaan oo waxa ayna weydiinayaan halka ay tahay inay aadaan laakiin ma jirto wax talo ah oo la siiyo iyaga sababtoo ah hadda waa habeen oo ma jiro tareen inta ka hartay habeenkii soconaya inta aan ognahay waxa ay tani tahay dhibaato bani aadamnimo oo sii kordhaysa iyadoo weerarada Ruushku ay sii kordhayaan sidaasoo kale cabsida ayaa ku sii badanaysa kuwa aan difaaca lahayn ciidamada Ruushka waxa ay ku sii siqayaan caasimadda Ukraine kumayaal qof oo reer Ukraine ahna waxay u dagaalamayaan si ay u difaacaan deegaanadooda inkastoo qaar ka mid ah oo dadkaasi aysan lahayn khibrad ciidan wasiirka difaaca ee Ukraine ayaa sheegay in 25,000 oo qori lagu wareejiyay xubnaha difaaca dhulka ee gobolka Kiev oo kaliya waxaynu booqanay xarun lagu qaybiyo hubkaasi oo caasimadda Kiev ku taal
rayidka waxay ka jawaabayaan baaqa ah in dalkooda ay difaacdaan guud ahaan Kiev 25,000 oo qaryaha darandarooriga u dhaca ayaa la siiyay dadka reer Ukraine ee caadiga ah si ay ula dagaalamaan ciidanka Ruushka. qaar ka mid ah raggan ayaa markii ugu horeysay loo dhiibay hub. Vladimir Vyatrovich ayaa ka mid ah waa xildhibaan wuxuuna sheegay in qof walba ay waajib ku tahay inuu dagaalamo. qof kasta oo awood u leh inuu difaaco dalka waa inuu hubka qaataa. waxaan ku faraxsanahay in xubnaha baarlamaanku ay ku guulaysteen inay soo rogaan sharciga dagaalka kadibna waxay si wada jira u safteen qoryo. ilaa iyo hadda inta aan ogahay in ka badan 100 xubnood oo baarlamaanka Ukraine ah ayaa qaatay hub waxayna hadda ku biirayaan ciidamada difaaca dhulka oo kala duwan. wax cabsiya iguma haysato inaan dagaalka ka qayb qaato. aad bay uga cabsi badnayd in la sugo duulaan aan dhammaad lahayn. ninkan gacanta ku xiran marada jaalaha ah ayaa raggan ku tilmaamaya inay yihiin dagaalyahano iska wax u qabso ah. waxay ka soo kala jeedaan qaybaha kala duwan ee nolosha ah. waxay isugu jiraan fanaaniin, qareeno iyo ciyaaryahano. laakiin waxay soo ahaayeenba hadda dhammaantood waxaa laga filayaa inay magaalada difaacaan. waxaa jira dad khibrad ciidan leh haliyeeyo dagaal iyo kuwa qalinkoodii ama waxbarashadoodii qoriga ku beddeshay. waan ogahay suurtagalnimada weyn ee reer Ukraine u leeyihiin dagaalka. waxaan rajaynayaa guusha kadib inaan qoro buug taariikhda dagaalkan ku saabsan. dhammaan ragga da'doodu ay ka yar tahay 60 sano ayaa laga mamnuucay inay dalka ka baxaan waxaana loogu baaqay inay dagaalamaan. iyadoo ciidamada Ruushka ay duulaan ku soo yihiin caasimadda dadka halkan jooga waxay leeyihiin waxay qaadan doontaa dadaalka qof walba si loo joojiyo. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasood ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter Instagram iyo YouTube-ka oo aad toos nooga daawanaysaan. waxay noo soo socdo aan caawa qaybaha dambena weli idinkugu haynaa warbixino ay ka mid tahay khibrad ciidan ma lahan balse kumayaal shacabka Ukraine ayaa hubkoodii qaatay inkastoo dhawaan daawateen.
caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan. aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn. kulan degdeg ah oo qaramada midoobay yeelatay ayaa loogu baaqay Ruushka in ay degdeg u joojiyaan duqeynta ay Ukraine ku hayaan. magaalada Lviv kumanyaal ayaa ka qaxay dagaalka oo meel ay ku nabad galaan baadi goobaya. cunaqabataynta reer galbeedka waxay gilgishay dhaqaalaha Ruushka iyada oo bangiga dhexe ay dhibaato ka soo gaartay dulsaarka. qiimaha lacagta Ruushka la yiraahdo rubalka ayaa si weyn hoos ugu dhacday ilaa 40%. midowga Yurub, Mareykanka iyo UK oo hadda ku soo biirtay waxa ay qaadeen tallaabooyin aan horey loo arag oo ku mamnuucaya beec mushtarka inay la leeyihiin xiriir la lahaadaan bangiga dhexe ee Ruushka. Bella Sheego ayaa ka waramaysa. qofka loogu jira meelaha lacagta caddaanka ee dhammaadka toddobaadka ee Moscow iyo St Petersburg. lacagta Ruushka waa burburaysaa. bangiyada waddankuna waxay noqdeen kuwo ku go'doonsan nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah. dadkuna way walwalsan yihiin. xaaladeena dhaqaale aad bay uga sii dari doontaa. waa lama huraan marka lagu jiro duruufahaas, laakiin weli lama barbardhigi karo dadka guryahooda ku dhimanaya ee eedda leeyihiin ciidamadeena. waxaan la xiriiray saaxiibo Ukrainiyaan ah, mana hayo erayo iyaga u qalbi qaboojin karaa. ma hayo wax kayd ah oo lacag adag ah. tallaabada ugu weyn ee ay qaadeen quudaha reer galbeedka ayaa ah go'aankii ay ku xanibeen bangiga dhexe ee Ruushka in ay galaan $100 bilyan ah oo kayd ugu ahayd dibadda. taas macnaheedu waa in bangiga dhexe aanu awoodi doonin inuu taageero lacagta waddanka u gaarka ah ee rubel, kaas oo ahaa dhiigbax qiimihiisa. dadka Ruushka taas waxay ula macno tahay inay la kulmi doonaan qiimo sare ugu yaraan oo aan laga ilaalin doonin saameynta dagaalka Ukraine. mowjado kale oo cunaqabateyn ah ayaa lagu soo rogay toddobaadkii la soo dhaafay. waxaa jiray cadaadis saaran bangiyada Ruushka taas oo hoos u dhigtay helitaanka maalgelinta. dhoofinta tiknoolajiyadda muhiimka ah ee Ruushka waa la mamnuucay. waxaa jiray cunaqabateyno loo dejiyay si gaar inay ugu dhacaan madaxda dalka laguna xayiro hantidooda dibadda. waxaad arkaysaa safaf dukaamada loogu jiro gaar ahaan kuwa raashinka. dadka iibsanaya badeecadaha qaarkoodna waxay u malaynayaan inay gabaabsi noqon karto xanibaadaha ganacsiga awgood ama laga yaabo in qiimuhu kor u kaco sababtuna ay tahay qiimo dhaca ku yimid lacagta. laakiin tallaabooyinkan midkoodna Ruushka saameyn kuma yeelan dhoofinta faa'iidada badan ee saliidda iyo gaasta. taasina waxay xadidi kartaa waxtarka xanibaadahan. haddii aad eegto dhaqaalaha Ruushka waxa uu inta badan gacanta ku hayaa saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ee loo diro Yurub. sidaas darteed ilaa intaan ogolaanayno saliidda iyo gaaska dabiiciga ah ma saameynayo intaanu awoodno in aan cuuriyaamino mashiinka dagaalka ee Vladimir Putin. waxaa cad in cunqabateyntu ay saameyn weyn ku yeelan doonto nolol maalmeedka Ruushka, laakiin su'aashu waxay tahay taasi ma ku filan tahay in madaxweyne Putin uu ka laabto go'aankiisa ee weerarka. dagaalka ka socda dalka Ukraine wuxuu saameyn weyn ku yeeshay dad badan oo ajnabi ahaa oo waddankaasi joogay una joogay siyaabooyin kala duwan. qaar ka mid ah waxay ahaayeen arday markii uu dagaalku qaxayna oo halkaasi ka bilowdeen waxay damceen in ay naftooda la baxsadaan. waxayna la kulmeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin midabta koor iyo in laga reebo gaadiidkii ay ku baxsan lahaayeen. waxaana ka mid ah gabadhan u dhalatay dalka Nigeria oo ardayad ah. waan daalanayn waan gaajeysnayn ma seexan 2 maalmood. waxaan ka xunnahay sababta ay marka hore Ukrainiyaanka u saareen anagana dalkooda inooga tagayaan. qabow, muqdi, qas iyo walaac daran ayaa jiray. waxay noola dhaqmeen sidii xoolaha oo kale. fariiso, istaag, qoriga baadkiisa ayay nagu riixeen. rasaas cabsigelin ahna kor ayay u fureen. waa tahay warbixinadii iyo waxaan ku jirnaa dagaalka Ukraine si aan haddaba xaaladda waddankaasi ka jirta ogaano. waxaa stuudiyaha igula sugan aadan maxamed cabdisaalimiin oo la socday wararkii ugu dambeeyay. aadan wixii noogu dambeeyay waxay ahayd gabadhan hadda ka hadlaysay in ay cunsuriyad la kulantay. wararkii kale oo dagaalka wada hadallana waa ay socdeen. bal adiga ayaa fadhiyay qaybtii wararka haddana igu soo biiray maxaa u dambeeyo ilaa hadda aad ogtahay. wararka ugu dambeeyay waxa ugu waaweyn weli dagaalku inuu ka soconayo magaalooyinka Kiev iyo Kharkiv oo magaalada caasimadda iyo magaalada caasimadda labaada. dhinaca kalena wada hadaladii u dhaxeeyay Ruushka iyo Ukraine ayaa soo idlaaday iyadoo wax natiijo aan ka soo bixin. laakiin labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay wada tashi uga laabtaan caasimadooda kadibna ay maalmaha soo socdaan dib u kulmaan. dhanka kale weli waxa sii soconaya tallaabooyinka ay qaadayaan reer galbeedku ay ka qaadayaan dalka Ruushka oo xagga cunaqabataynta iyagoo markaasi soo rogay tallaabooyin dhowr ah oo
xagga dhaqaalaha ay markaasi ku cadaadinayaan ruushka taas oo keentay markaaba in shalay sida aan ognahay madaxweynaha ruushku uu sheegay in heegan uu geliyey difaacooda oo ay ku jiro nuclearka waxaa ugu dambeeyey cunaqabateynadaasi in bangiyo badan oo ruushka oo bangiga dhex uu ku jiro la fariisiyay hantidoodii sidoo kale xagga diyaaradaha waxaa iyaguna markaasi dalal badan ay mamnuuceen in hawadooda ay soo gaalasho diyaaradda airflood ee ruushka laga leeyahay marka weli way socotaa umuurahaasi xataa ciyaarihii ayaa isla galay oo FIFA ayaa xataa waxa ay joojisay in ruushku ay markaasi ay ka ciyaaraan ciyaaraha soo socda oo waxa ay la ciyaari lahaayeen Poland iyo wadamo kale oo ciyaaraha loogu diyaar garoobayay xagga kubadda cagta ee markaasi isla reebka marka talaabooyinkaasi oo dhan ayaa soconaya weli wax natiijo ah ma jiraan golaha guud ee loo dhan yahay jamciyadda qurumaha dhexeysa isaguna waa uu fariistay dooda ayaa ka soconaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku baaqay in dagaalka la joojiyo dad baa dhimanaya buu yiri dagaalku waxa uu ka socdaa cir iyo dhul iyo bad marka baaqyadu way soconayaan welise natiijo rasmi ah lagama gaarin oo dagaalkaasi lagu joojinayo ama isfaham uu ku dhalan karo waa tahay Salmin wararkii aad la socotay aad ay u badnaayeen adoo noo soo koobaya waxyaabaha qaar ay ka mid yihiin dad badan meesha joogay oo arday ahaa qaar Soomaaliba baryahana la hadlaynay maalmaha soo socdana waan la hadli doonaa marka maxaad ilaa hadda aad ka maqashay dhinacaasi dadkii ajnabiga ah ileen wadan aadan u dhalan markii dhibaato ka dhacdo dadkii wadanka lahaa ayaa marka hore carara ama awoodda hela dad badan marka halka Soomaali badan baa halkaasi Ukraine deganeed qaar xaq baa mushtari qaar xaq waxbarasho in badan way qaxeen waxa ay gaareen Poland qaar jidka ay ku jiraan qaar waa isla yihiin guud ahaan dadka ajnabiga ah waxa la soo sheegay in meelaha qaarkood ay takoor kala kulmeen inay tareenada raacaan oo loo diidayay markaasi in la siiyo mudnaanta oo dadka mudnaanta la siinaya ay noqdeen dadka u dhashay wadankaasi Ukraine taas oo runtii aad yani talaabo falcelisa dhinaca baraha bulshada looga bixinay aad baad u mahadsan tahay aadan maxamed cabdi Saalimiin waan ku soo noqon doonaa Saalimiin iyo wixii kale uu noo hayo waa haddii aan waqti u helno war degdegna uu soo baxo Saalimiin wuxuu fadhiyaa qaybta wararka waa mahadsan tahay Saalimiin markana wararkeena ciyaaraha caawa weli kubadda cagta ayaynu ku jirnaaye Liverpool ayaa EFL-ka si xaraga leh ugu guuleysatay kadib markii ay rigoorooyin 11 ah kaga badisay Chelsea natiijooyinka ayaa uga dhigan Liverpool in ay qaadi karto sanadkan 3 koob sida Premier League, FA Cup iyo Champions League ka hor ciyaarta intaysan bilaabin ciyaartoyda waxa ay iyo taageerayaasha muujiyeen taageerada ay u hayaan dadweynaha reer Ukraine kubadda cagta ku jirnaa FIFA ayaa sheegtay in ay Ruushka ay weli ciyaaraha koobka adduunka ay u soo bixi karaan balse ay ku xireen shuruudo adag BBC-da ayaa fahansan in FIFA ay wada hadallo kula jirto Ruushka arinta ku saabsan in si buuxda loo hakiyo Ruushka ilaa iyo amar dambe waxa ayna si dhow ula shaqeynayaan UEFA waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo gelinka dambe ee maanta waa haddaan idaacadda ku jirnana waa idinla socodsiinaynaa haddii aan ka baxnana boggeena bararteen internetka iyo facebookgeena iyo aan idinkugu sheegi doonaa hadduu rabbi idmo markana sanadkan waxa uu ku beegan yahay sanad guuradii 125aad ee ka soo wareegatay markii qalab farshaxan ay ciidamada Ingiriiska ka soo biliqaysteen intii lagu jiray burburintii Benin City ee Nigeria ee halkan la keenay sanad guurada ayaa dib u soo celisay baaqi Afrikaanka ee ahaa in loo soo celiyo malaayiin walxii la xaday waxaana jira war kuwa hor leh oo hadda la taagayba London ayaana laga taagay taasoo caqabad ku ah sheegashadaasi iyo dhammaan waxa halkaasi ka jira warbixintaana waxaan ka soo qaadnay madxaf halkan lagu soo bandhigay waatan Iimaan oo inoo faahfaahaysa kiniisadda St Paul's Cathedral waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ee UK wadahadal la rabay in uu dhaco 125 sano ka hor ayaa ugu dambeyntii hirgelaya sawirka taariikhiga ah ayaa jooga dhismahan weyn ee Ingiriiska dadkuna waa ay akhrinayaan laakiin qofna ma garanayo waxa kale ee dhacay rakibaadda weli taagan ee Victor Ehegnor ayaa si geesinimo leh u qaadanaya booska ku xiga taliya Sir Harry Holsworth-Rawson waxa uu ahaa taliye sare waxa uu mas'uul ka ahaa weerarkii 1897 markaa shaqadayada ayaa si toos ah ula xiriirta Ole Overramp waxa uu ahaa boqorkii xukunka hayay markii Berlin la weeraray waxaan doonayay inaan siiyo ammaanta uu istaahilo sheekada uu Victor doonayo in la ogaado waxa ay ku saabsan tahay bililiqada ay ciidamada Ingiriiska u geysteen kumanaan kun oo farshaxano ka soo jeeda magaalada Benin oo loo yaqaano Benin Bronzes waxa ay soo
soo ceshan qayb yar laakiin Victor waxa uu aaminsan yahay intaasba aysan ku filnayn. hadda ayay bilaabatay haddaba waxaa jira wadahadallo hore u socday wadahadallo rajo leh ayaa jira welina waxaa noo haray waddo dheer markaa weli wax ku filan lama gaarin waa 125 sano oo aan waxba la qaban. rakibaadda ayaa qayb ka mid ah kiniisadda St Paul's Cathedral waxayna ku martiqaadayaan hal abuuro casri ah oo adduunka oo dhan ah si ay uga jawaabaan kontonka su'aale taariikhiga oo ku wareegsan kiniisadda. waxaanu isku dayaynaa inaan furno wadahadal ku saabsan xiriiradaasi oo South Paul ku lahaa howlaha gumaysiga ee Afrika, Hindiya iyo adduunka oo dhan. waa inaynu baarnaa khasaarihii soo gaaray muddadaasi iyo sida kuwa la isku waafajin lahaa sidii loo samayn lahaa wadahadallo dheeraad ah oo ku saabsan mawduucyadaas. rajadaydu waxay tahay in wadahadallo kale aan hore loo yeelan sheeko badan oo aan fiicnayn oo ku saabsan gumaysiga kuna saabsan hoos u dhigga kuna saabsan bililiqada oo ku saabsan boqortooyooyinka marka waa in la bilaabaa. xusuusnow wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali idinkoo haddana toos nooga daawanaya boggeenna bbcsomali.com iyo sidoo kale YouTube-ka. barnaamijkeenna caawiya caalamka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta aan kulmi doonno habeen dambe warbixinada ku saabsan tii ugu dambeysay oo hadda ka taagan waddanka Ukraine iyo Ruushka u dhaxaysa boggeenna ayaa si toos ah ugala soconaysa. nabadgelyo.